مدى النفع بالناس نفعك أما دادك وحلا ترى أما قفك إنو النقضة قف واحتر له نافعة أصلك قفك مسلم كواسداس إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا iyo axaadiita nabiga sallallahu alayhi wasallam intooda badan markay la fiiriyo mar walba waxay na amraan ama ay na faraan in aan noqono dad wax anfaco dhibta iyo maxaa jiri waa inaan wax geysan inaan iska ilaalino ilaahay quraankiisu wuxuu leeyahay wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin wanaag sameeya samafal sameeya ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa samaha fala نقض كو وحتر دتك أنفعه إلهي وحو جعل هاي دتك كالأنفعه مرن إلهي وحو له إن الله لا يضيع أجر المحسنين إلهي ما ضيعه أمل الله كمرهذو قفك وناك سمي وناقيسا ما دام قفك وناق السمي إلهي وجعل هاي وحو سمين إلهي سبحانه وتعالى وأحب دنايا مرن إلهي وحو له وبشر المحسنين kuwa samaha fala wanaaga sameeya dadka wax u tara halo u bishaareyna maxmedow u bishaaray oo wanaag u bishaaray marna ilaahay wuxuu leeyahay lil ladina ahsanul husna wa ziyada dadka wanaaga sameeya samafalka sameeya dadka wax u tara waxay leeyihiin ziyadada culimadu waxay ku tafsiiraan ilaahay subhanahu wa ta'ala aragtidiisa inuu qofka arko qofka markuu uu noqdo qof wax tar leh umada anfaco wanaaga u sheego dhibtiisa shartiisa dadka ka ilaaliyo ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinka aakhir awaal mar wuxuu ugu dhigayaa inuu istusiyo wajigiisa inuu arko marna ilaahay wuxuu leeyahay wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk dadka u samafal oo wanaag u sameey oo u noqo qof waxtar u leh ilaahay sidoo ku hagaajiyay sidoo ku wanaajiyay sidoo wax walba uu ku siiyay إلهي عافماد يوكسيي حولا أيوكسيي وقت أيوكسيي أود أيوكسيي علم أيوكسيي درجة أيوكسيي ضد وحاجر أنت أصلا هيسن أدي هدي عافماد لوكسي إلهي وناق وكوسميي ضد وحاجر عافماد عن قبنا أباهن إن وناق لو سميي أباهن إن لا درييلو أباهن إن لا دعايو أباهن إن لا بغضو أو اسبتالة تشيفو أو قرياش تشيفو هدي إلهي أود وكسيي dad baa waxa jira awood aan haysanin oo ay haleeshay ama si kale u taag darno ama qofkii inuu yar yahay ama inuu yahay ama inuu lugaha wax ay ka gaareen awoodiisa quwadiisa wax ay ka gaartay waxa la doonayaa marka haduu ilaahay awood uu ku siiyay quwo uu ku siiyay qofka awoodda aan lahayn inaad wanaag u sameeysid wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ilaahay haduu ku siiyo xoolo taajir uu ku ka dhigay qof ladan uu ka dhigay qof baa baahan qof baa gaajahayso qof baa aan casheenin qof baa aan quraanin qof baa saaka guriis ka soo toosay asagoo caruurtiisa ay gaajaysan tahay reerkiisa uu gaajaysan yahay guriga laga soo ceerina leeyahay biilka keen ama leeyahay ijaarka keen dadka xoolo ma wada qabaan adiga ilaahay haduu ladnaa uu ku maneestay uu ku wanaajiyay xoolo uu ku siiyay wuxuu ku leeyahay wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk إلهي سيدو كو وناجيي دادكو او وناجو دادك وح أسي إلهي وحالقيا وفرصة فربضا إنو كسيي ديق فربضا إنو كسيي وحبرش فربضا إنو كسيي إنا تايقف وحبرتي أو علم له أو أقوان له أو جامعات كصوبحي أما وحيس السارين هنا وحبرنايو قفبا وحاجر وحبا عن أقوانين سيدا وح لو قرى ما يقانو سيدا وح لو أخري ما يقانو سيدا مشد لو در ما يقانو أما تلافكيسو وتا سيدا لو والدكيسا أما دادكيسا ما يقانو دادك wax ma wada baranin waxa la doonayaa marka waa ahsan kama ahsan Allah ilayka ilaahay suu ku wanaajiyay wax ku baray aqooniha uu ka dhigay dadka waxa la doonayaa inaad u wanaajiso waxaad u faa'iideyso intii ilaahay ku baray uu ku wanaajiyay dadku u faa'iiday marka ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka marka u fiiriso mar walba ilaahay wuxuu dadka wuxuu jecel yahay ama uu dhiirigelinayo ama uu bishaareynaya dadka waxtarka u leh dadka kale oo wanaajiyo awoodooda ku wanaajiyaan aqligooda ku hagaajiyaan garaadkooda ku wanaajiyaan cilmiga aqoonta ay barteen shay walba qofku uu haysto
walaalkiisa kale inuu ku anfaco ayuu horumar ku gaari karaa wixiina way ku ziyaadayaan ilaahay agtiisana waxaad noqonaysaa qof la jecel yahay walaalkaada waad anficaysaa